Waxaa jiray nin lagu magacaabi jiray Cabdulqaadir, wuxuuna ahaa nin Muslim ah oo cadaaladda iyo diinta jecel. Wuxuu noolaa qarnigii 11aad, waana nin si weyn loogu yaqaanay cibaado, samir iyo run sheegid. Maalin ayaa nin reer boqor ah isku dayay inuu dilo sabab la'aan, kaliya sababtoo ah Cabdulqaadir wuxuu diiday inuu wax qaldan u saxiixo. Laakiin markuu tooreydiisa qaaday, gacantiisa ayaa gariirtay, wuxuuna weji xanuun leh ka qaaday Cabdulqaadir. Nin kastoo waxyeelayn lahaa wuu naxay markuu wejigiisa fiiriyay. Boqorkii wuxuu u yeeray Cabdulqaadir oo yidhi, waxaad tahay nin xigmad leh, dadkuna way ku raaceen. Waxaan rabaa inaan kuu dhiibo mansabad sare iyo hanti badan. Laakiin Cabdulqaadir wuxuu ugu jawaabay, boqorow, ma rabi inaad i siiso wax iga jeediya Rabbigayga. Lacagtu iyo jagooyinku waxay beddelaan qalbiga. Aniga waxaan doortay samir iyo run sheegid. Boqorkii wuu xanaaqay, laakiin dadkii kale waxay bilaabeen inay ixtiraamaan Cabdulqaadir, waxayna ugu yeereen sheekha cadaaladda. Wuxuu noqday nin dadka saboolka ah la nool, wuxuu la cunay tufaaxa dhulka yaalay, wuxuu la jiifay meel dhoobo ah, laakiin wejigiisa mar walba waxaa ka muuqan jiray nabad iyo raxmad. Dhalinyaradu waxay u imaan jireen si uu wax ugu dhigo. Wuxuu dhihi jiray, cilmiga aan baranayo ma ahan keliya qoraal, waa sidaan u noolaado. Wuxuu diiday inuu raaco boqorro, wuxuu diiday inuu qoro warqado been ah, wuxuuna bilaabay inuu dadka baro xigmado iyo run. Maalin ayaa nin xukun doon ah u yimid oo yidhi, ma i bari kartaa sida dadka loo xukumo? Cabdulqaadir wuxuu ku yidhi, marka hore baro sida qalbiga u xakamayso, kadib dadka waad xukumi kartaa. Qof walba oo la kulmay wuxuu dareemay inuu la kulmay qof iftiin ka buuxo. Wuxuu dhintay asagoo aan lahayn qalcad, gaari ama waardiye, laakiin markuu u dhintay, kumanaan dad ah ayaa ka soo qayb gashay aaskiisa.